assalaamu calaykum. waa mar kale iyo muuqaal kale oo aan kaga hadlayno sirdoonkii Soomaaliya. waa sheekooyin taxane ah oo uu qoray Faarax Xiirane oo ahaa sargaal ka tirsanaa hay'adihii sirdoonka ee dalka. sargaal ka tirsanaa hay'adii sirdoonka Soomaaliyeed ee sanadkii 1976 ilaa 91 howlgallo sirdoon oo aad muhiim u ahaana ka qayb qaatay ayaa ka hadlay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu ku xasuusto sirdoonka Soomaaliya, waxaana uu yiri sanadkii 1985 ayuu taliska nabad sugidda qaranka uu ii diray safar shaqo oo aad u qallafsan inaan ku aado dalka Itoobiya si aan dad qiimo u lahaa taliskii Itoobiya ciidu ugu daro. ma ahayn markii ugu horeysay ee la ii diray Itoobiya, dhowr jeer ayaan magac dulsaar ahaa ku tagay, laakiin markan waa uu ka doonaa safarka. saraakiil Soomaaliyeed oo dalka ka baxsatay ayaa Itoobiya la soo saftay dagaalkii ay nagula jirtay. haddaba si aan Addis Ababa u tago ayaa waxaan qorshaystay inaan marka hore aan tago magaalada Lagos ee dalka Nigeria, kadibna aan u dhoofo waddanka Hungary oo qaaradda Yurub, halkaas aan ka soo galo dalka Itoobiya. 4pm hotel la yiraahdo oo ku yaala magaalada Budapest ee caasimadda dalka Hungary ayaan u hoyday. subaxdii hore waxaa la igala soo hadlay qaybta soo dhaweynta, waxaana ii sheegtay adeegto joogtay halkaasi inuu i doonayo nin la yiraahdo Ibnu Idlib. shaki weyn ayaa i galay. waxaan u diyaar garoobay inuu dhici karayo faldambiideed la igu qaarijin karo. xaashi yar ama waraaqad yar ayaan ku qoray telefoonka taliyahayga xamar jira xafiiskiisa, waxaana saaray sariirta dusheeda si haddii la ii qaarijiyo ay ciidanka nabadgelyada ee dalka Hungary ugu yaraan ay ula xiriiraan xafiiskaas, kadibna warka geerideeda uu gaaro dhulkii aan u dhaartay inaan u dhimanayo ee ah Soomaaliya. intaanan qaybta hoose ee hoteelka wada gaarin ayaan dabaqa labaad ku soo hakaday si aan aragti buuxda uga qaato qaybta hoose. nasiib wanaag waxay indhahayga durbe ay qabteen gaashaanla sare Cabdixamiid Xaraaq oo ka mid ahaa saraakiishii lafdhabarka u ahayd adeega nabad sugidda ee dalka Suuriya. sanad ka horna aan marti ugu ahaa xafiiskiisa oo ku yaala meesha la yiraahdo Kafarsuusa oo magaalada Dimashq ka tirsan. salaan aanan magaca la isugu yeerin kadib ayuu igu yiri waa aniga Ibnu Idlib. xabad sigaara intuu shitay ayuu anigana mid igu maamuusay, waxaana u gartay aan dibadda hoteelka aan u baxno. waxaan ku idhi aan qolkaygii mar kaliya ku noqdo, bannaanka ayaan kugu sugayaa ayuu ii raaciyey. waraaqdii aan ku qoray nambarka taliyahayga ayaan soo jeexjeexay si aanay qolyaha nadaafadda u arkin oo aan qabo badankood inay yihiin indho dowladeed. kadibna degdeg ayaan uga soo degay qolkaygii. waxaan tagnay safaaradda Suuriya. waxaan isku aragnay rag dhowr ahaa oo Shaam aan isku shaqo barannay. waxaa durbe la ii dhiibay liis ay ku qoran yihiin dhowr nin oo ka mid ahaa laanta nabad sugidda Soomaaliya. raggaasi waxay Suuriyaanka ay heleen warbixinno lagu kalsoon yahay oo caddaynaya inay sirta qaranka Soomaaliyeed ay siinayeen Itoobiyaanka, isla markaana ay u marsiinayeen saraakiil ka tirsan ergada masaarida ee magaalada Muqdisho jooga. waxaan fadhigaasi keligay gaaray go'aan ah inaan dib ugu laabto magaalada Muqdisho iskana ilooba Itoobiya iyo dhoofitaankeedii. waxaan galabtiiba aan aaday shirkaddii diyuuradaha aan la socday, waxaana ka codsaday in hore la iigu soo dhigo safarkeygii. $120 ayaa la iiga qaaday. maalin kadibna waan soo noqday. socod dheer kadib waxaan imid magaalada Muqdisho. allaha u naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo taliyahaygii ayaan warbixintii u dhiibay, waxaana u raaciyey jaalayaal waxaan filayaa inuu dhintay wejigii aan ku tegi lahaa Itoobiya. si wanaagsan ayaa loo aqbalay, inkastoo labada oday ay xoogaa ay caroodeen, sigaarna ay iska daba shiteen. maalmo kadib waxaa xabsiga loo diray saraakiishii laga soo warsheekooday kadib markii la xaqiijiyey warkii ay Suuriyaanka ay soo tabiyeen. muddo gaaban kadib madaxweyne Siyaad Barre waraaq gaar ah ayuu ii dhiibay, waxaana uu qaaday caasimadda dalka Suuriya ee Dimashq. madaxweyne Xaafid al-Asad ayaan u siday mahadcelin ballaaran oo aan ka siday madaxweyne Siyaad Barre. bogaadin dheer ayaa loo diray saraakiishii ciidanka qalabka sida iyo kuwa aan muuqan Suuriya oo aan igu cusbayn. waxaan sida caadada u ahayd madaxda dunida carabta ay la kulmaan saraakiisha ammaanka xilliyada fiidadkii ah ee aan loo soo ag dhowaanaynin haddaysanba xaaladdu degdeg ahayn. hotel la yiraahdo Shaam oo la igu martigeliyey ayaa waxaa maqribkii dabadii iigu yimid Hishaam Bakhtiyaar oo ka mid ahaa saraakiishii xisbiga Al-Bacth ee dalka Suuriya. wuxuuna ii qaaday aqalkii uu deganaa madaxweyne Xaafid al-Asad oo aan ka fogeyn dhismaha safaaradda Soomaaliya. war dheer kadib Xaafid al-Asad wuxuu u soo jeediyey madaxweyne Siyaad Barre tale ay habbooneed inuu ku dhaqaaqo fulinteeda. walaalkay madaxweyne Siyaad Barre waxaan jeclaan lahaa inuu ka fikiro xiriirka Liibiya iyo korneelka xukuma waa Qadaafiye. Asad wuxuu ku qanacsanaa in Liibiyaanku ay la waasheen saliidda qaniga ay ku noqdeen, isla markaana aqoontoodu ay yar tahay.
ka xishoon maayaan inay dalal degan ay colaad ee ka horiyaan iyadoo aysan jirin faa'iido qarankooda ugu imaanaysa. madaxweyne asad waxaa kale uu yidhi waxaan qabaa si loo joojiyo hantida ay ku shubayaan jeebabka jabhadda hubaysan ee doonaya inay qaranka Soomaaliyeed ay dumiyaan iyaga oo kaashanaya cadow kasta oo ummadda uu leeyahay in madaxweyne Siyaad Barre uu soo celiyo xiriirka Liibiya si shartooda looga nabadgalo. warqad uu madaxweyne Asad ku suntan yahay ayaa la ii dhiibay jidka aan xamar u marayo ee ah magaalada Jeddah ee dalka Sacuudiga waxaa jirta cabsi laga qabay in Sacuudiyaanka ay Mareykanku ay dhabarka ay ka taabtaan isla markaana ay baaraan boorsadeeda diblomaasiyadda si aysan u dhicin waxaa la igu tolay warqadii buug markii aan xamar tago aan jeexjeexi doono. Faarax Xiirane ma uusan sii raacinin faahfaahin intaan dhaafsiisan oo ku aadan warqadii uu soo qoray madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad iyo tallaabadii uu qaaday madaxweyne Siyaad Barre maadaama xilligaasi uusan wanaagsaneyn xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dalalka Liibiya iyo Soomaaliya. taasi ayaa waxaa loo qaatay inay keeni karto caqabad badan oo Soomaaliya ay ku keentay. waad ku mahadsantahay la socoshada iyo qaybaha kala duwan muuqaalada aan halkan ku soo bandhigo. waan arkaa dhiirigelintaada taasoo ii horseedaysa inaan ku mashquulo diyaarinta warbixinno kale oo aan isleeyahay dadkaada Soomaaliyeed wax uun ayay ka faa'iidi doonaan. taariikhaha sirdoonkii Soomaaliya waxay inta badan ay u badnaan doonaan xasuusin ku aadan hannaankii ay u shaqayn jireen hay'adaha sirdoonka waxaana warbixinada inta badan qoray Faarax Xiirane oo ka mid ahaa saraakiishii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. waxaa kaloo jira sheekooyin kale oo Faarax uu qoray